بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل دور كمدشن عاوي سوقي من مدنيالي يوم مروين صاحبة إذا دوتا كقيب جليا نسباير جروبية حريرية مدشن محمد إليك لما أنتم با السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسود وين يا دوتا هل دور كهل كان كهدلي أركتي في عنا ويبحيين waxaan isku dayi doonaa inaan mowduucana ku koobnaado soona ururiyo kastoo waqtigu iska yar yahay mowduucuna mowduuc ballaaran yahay wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland xukuumaddii xisbiga kulmiye madaxweyne Siilaanya garwaanka ka ahaa dambay u aragtay dariiqii dheeraa ee xirsi ka sheekeynaya waa la soo mariyay si ay talo wadeereed ugu muuqato wadahadallada bilaabmay 23 February 2012 magaalada Lancaster ee dalka Ingiriiska oo markii dambena ka dhacay dalka Imaaraadka Turkiga iyo Djibouti iyo afar wadan ku qabsoomay 7 kulan oo foolka foola ayaynu Soomaaliya la yeelanay wadahadalladaasi waxay noqdeen madhalaysi waxay midhiha aynu ka doonaynina kamaynan goosan waxaan se isleeyahay faa'iido badan baynu ka helnay innagoo oo aan waxba ka helin faa'iidana waynu ka helnay waayo aragnimaynu ka helnay eed iska reeb baynu ka helnay oo soo cidna lamaydaan hadal iyo walaaladiin wada hadla eedii baynu iska reebnay reer guurraac iyo carruur waa loo kala sheekeeyaa arrintaas waxaas eedeeda lama wada lahaa dalka aynu walaalaanahay jaarkanay Soomaaliya ayaa jabiyay oo buriyay dhammaan heshiisyadii iyo isfahamkii ina dhex maray niyaddii wanaagsanaa wax lagu bilaabayna iyagaa baabiyay maantana priority uma arkaan wada hadalka anigu ma qaba in la joojo wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ma qabo in wada hadallada loo galo qaabkii hore lagu waday waxaan aaminsanahay in madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu sax ku yahay mowqifka uu wada hadallada ka qaatay Soomaaliya inaynu ku wada hadallo oo laynagu dhaxaadiyo fagaaro caalami ah muumin laba god lagama wada qaniino wada hadal labadeennoo qura oo aynu keli isku nahay oo kuwii shalay taba ay buriyeen oo waxba ka soo bixi waayeen maantana macna samayn maayo waxaynu uga baahanay inaynu si kale u fikirno dunidu ilaa maanta waxay qabtaa inaynu wada hadallo ma aaminsan dunidu inaynaan wada hadlin bal waa laynagu muqaynayaa madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo kama muuqato qorshe iyo aragti qoto dheer uu ku wajahayo qadiyadda Soomaaliya iyo Somaliland u dhaxaysa bal waxa ka muuqata oo qura qaraw iyo qiiro aan qolqolkiisa dhaafsiisnay walaaladeenna Soomaaliya calooshooday qaydin u qarinayaan waxaanu leenahay war walaalayaal calooshiina qaydin ha u qarinina qadiyad weyn baa ina dhex taala oo masiirkii xaqaaya ka tashiga ummadda Somaliland oo laba daloo midoobay baynu hayn oo waxa uu professor ka warramay Samatar iyo muxuu ahaayay Maxamuud Xaashi cilmi bawaaro waxaynu baahnay maanta in layna dhexdhexaadiyo layna la joogo dunidu way taqaanaa sida wax loo dhexdhexaadiyo dalalka dunidu khibrad iyo waayarinimo u leeyihiin labadii dal ee horeeyay sida cajina ay isku baqtiyeen maniin duni badan ayaa isku haysa xaqa iyo tigshigooda qaar wali aan ku guuleysan xaqoodii iyo qaar ku guuleystay منطقة جيس كأفريقيا مركز نسوقنا السودان وطن ذلك السودان ساوث السودان جودهان ذلك ويناية قارة أفريقيا وينا السودان لورنشري وحكد عي ذلك الصومالية لورنشري ذلك السودان the longest conflict in the region متدير بيكود هذليين سيدا إنه أكله أو هذا توس أي لهاي أكلية waxay ku shireen Addis Ababa dhowriyo 7 laga soo bilaabo
iyagoo dagaalamay waxay ku shireen Barcelona 1 iyo 2 waxay ku shireen Abuja wada hadalka may gaadhin markii dhigtii iyo dhigaatadii sii badatay ayaa la dhex galay dalka Kenya 2005 bishii January magaalada Layana Fasha ayaa lagu dhexdhexaadiyay heshiis nabadeed baa la dhexdhigay waxa dhexdhexaadiyay dalka Ingiriiska Mareykanka Norway oo khibrad u leh sida dawladaha loo wada hadal siiyo iyo dalka Kenya waxay u horseeday inay South Sudan xorrimo qaadato marka aynu eegno what makes country a country karateediya caalamiga ee dal lagu noqdo South Sudan marka la barbardhigo Somaliland afarta criteria permanent population strong government or law and order leh muxuu ahaayay a defined territory iyo sovereignty afarta qodob marka aynu eegno oo ay waliba dheertahay collective beliefs iyo social acceptance in bulshadaas aqoonsato inay dal tahay go'ay midna ma lahayn South Sudan waxa dariiqa u xaaray wada hadaladii dunidu dhex gashay baa u xaaray iyo xaqa ayatashiga ummadda oo referendum Sudan ummadda Sudan iyo ummadda Soomaaliyeed waxay wadaagaan waxyaalo fara badan midabo badan baa ka dhaxeeyay khilaaf dheer baa soo dhex maray military baa labada dhinacba qabsoo inqilaabay jabhada hubaysan baa ka dilaacay SPL baa xaga ka dagaalamayay SSDF muxuu ahaa SNM waxay leeyihiin labada gol dalba wax dalalka Sudan iyo Soomaaliya iyo weynaa iyo Somaliland iyo Somalia iyo Sudan iyo South Sudan waxay leeyihiin strategic location iyo geographic centrality saameyn kula mantiqada geeska Afrika nabadeeda iyo iskaashigeeda dhaqaale oo dunidu way ka walwalaysaa inay bamshal ku noqoto waxay wadaagaan waa laba wadan oo wadalal wadan memberska waxay wadaagaan natural resource baa laga helay ama lagu toosay waxyaalahaas ayna mideeyaan ma aha kaliya mantiqada geeska Afrika kaysaska dunidu xalisay la dhex galay waxa kamida Indonesia iyo East Timor wadan qura isku hayeen waa la dulmiyay dadka jasiiradda ay ku nool 1 milyan dunida dhex gashay wadamada South Asia dhexdhexaadiyay 2002 qarnigii 12aad bilowgiisa xornimo ku gubaystay waxa kamida wadamo la wada hadalsiyo la dhexdhexaadin kari waayay xoog lagu kala saaray oo la kala furay waxa kamida dalkii weynaa Yugoslavia la oran jiray Yugoslavia dagaalkii labaad dagaalkii qabada dunidu markuu dhamaaday maanta waa 7 jamhuuriyadood oo 6 kamida dunidu aqoonsan tahay waxa weeye Croatia Slovenia Macedonia Serbia Bosnia iyo Kosovo la aqoonsan iyo Montenegro wax la yaab magacaankaas aan maray waxaan uga jeedaa meel aynu ka baqno wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland ma joogno case cadna waynu leenahay Somaliland is a political and legal entity waxaynu leenahay saameyn waxaynu leenahay xorriyadeeni wuxuu inaga go'anaa waxaynu uga baahantahay sabir iyo dulqaad iyo dood caqiibada iyo qorsheynuna waynu sir noqdaa mikrofoonada de qorsheyn isla taagi mayno waa waxa gunta inaga riday waxa weeye waxaan leeyahay waxaan ku soo ururinayaa coachiskii oo ninkii xornimada South Africa u halgamay ee 27 sano jeelka ugu jiray prison to the president Mandela uu yiri when people are determined they can overcome anything markay ummadi mabda'eeda meel ku socoto wax walba way ka guulaysataa a winner is a dreamer who never gives up wariyayna niyad jabin Soomaaliyada waynu wada hadlaynaa waynu la guulaysanayna